Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalkeena Asnac Medical Center. Waa walaalkiina Dr. Cabdisalaam Nuur Axmed. Maanta waxaan qaadan doonaa 6 rights of drug. 6 xuquuqood ee daawadu leedahay ayaa maanta qaadan doonaa. Waana cashirkii ugu dambeeyay qeybaha horudhaca. Intaa in kadib waxaan dib u geli doonaa ama waxaan hore u sii socon doonaa qeybaha ugu muhiimsan ee pharmacology-ga. Haddii aan fiirno 6 rights of drug, 6 xuquuqood ee daawadu leedahay waxaa ka mid ah right drug, daawo sax ah in la siiyo qofka, right dose, qiyaas sax ah in la siiyo qofka, right patient, bukaan sax ah in la siiyo daawada, iyo right dose, meel sax ah in laga siiyo daawada qofka, iyo right time, waqti sax ah in la siiyo qofka daawada, iyo right administration, iyo qofka maamulis sax ah in qofka daawada lagu maamulo. Haddii aan fiirino right drug, daawo sax ah in la siiyo bukaanka waxay ka caawinaysaa in uu dareemo bukaanka firfircooni badan, maxaa yeelay daawada saxda ah ayaa ah midda qofka dareemi karo caafimaad sax ah. Waayo qofka daawada uu lahaa haddii la siiyo waxay ka caawinaysaa la dhahay firfircooni badan ayuu qofka dareemayaa, oo qofka waxay ka caawinaysaa in qofkii xanuunkii hayay uu ka reysto. Sababtoo ah qofkan waa la baaray, baaritaankii waxaa laga helay xanuunkii laga helay awgiis ayaa daawo loogu soo qoray. Daawadii loo soo qoray markuu qaatay xanuunkii haye ayaa ka dhammaanayo, oo dhibaatadii haysay ayaa ka yaraanayso. Qofka markaas ayuu dareemayaa firfircooni iyo caafimaad. Haddii qofka daawadii saxda uu qaato, qofkaasi wuxuu noqonayaa qof reystay, xanuunkii ka reystay. Laakiin haddii daawada laga qaldo dhibaato ayaa ku imaanaysa qofka. Waana xuquuqaha ka mid ah oo leeyahay bukaanka. Haddii aan fiirino right dose, qiyaas sax ah in la siiyo qofka, bukaanka qiyaastiisa waa in lagu hubiyaa qofka siinayo miisaankiisa iyo da'diisa iyadoo loo eegayo. Marka qofka professionalka, health professionalka ah ee meesha ka shaqeynaya ee dadka daawada siinayo waa in uu iska fiiriyaa dooska qofka uu siinayo. Haddii doos ka badan qofka la siiyo waxaa ka imaan kara in qofkii daawadii ay qabato, qofkii daawada markay qabatana xanuunkii haya xanuun ka daran uu ku imaado. Waana dhibaato qofka ku imaatay. Marka waxaa loo baahan yahay in qofka daawadii loo qoray oo keli uu qaato, dooskii loogu talagalay la siiyo. Tusaale ahaan doos haddii loogu talagalay 1,000 gram oo kaleeta cirbad ah, haddii qofka uu siiyo 2,000 doos ah, qofkaasi waxaa ka imaan karo in uu xanuunsado, daawadii uu ku xanuunsado. Waana wax loo baahan yahay in laga foojignaado. Marka si ay saas u dhicin waa in qofka uu ka taxadiraa daawada bixinayo, iskana fiiriyaa daawada qofka uu leeyahay midda ay tahay iyo midda kale. Sidoo kale right patient, bukaan sax ah. Si aad daawo u siiso, hubi bukaanka magaciisa in uu yahay magaca saxda ah. Marka qofka bukaan jiifka ah inpatient-ga ah waxa uu leeyahay feel oo daawada lagu siiyo. Qofka feelkiisa ayaa soo qaadaysaa, magaciisa ayaa hubinaysaa, daawada uu leeyahay iyo waxaa ku qoran magaciisa iyo detailkiisa oo dhan ayaa ku qoran. Marka si aad right patient-ga u hesho qofka bukaanka ah, markaad u timaado feelkiisa ayaa soo qaadanaysaa, magaciisi ayaa hubinaysaa inuu sax yahay, magaca daawada aad sii rabto iyo daawadan waxa ay tahay dhammaan meesha ayaa kaga bogan kartaa. Inta badanna feelku waxa uu yeelaa bukaanka agtiisa. Sidoo kaleeta right route, meel sax ah in laga siiyo daawada bukaanka. Tusaale ahaan haddii daawo muruqa ah laga siiyo qofka xididka, waxaa ka imaan karo dhibaatooyin kala duwan sida inuu dhinto ama inuu naafoobo. Sababtoo ah inta badan daawo xididka laga qaatay lagama qaadan karo sinta. Daawo oo sinta laga qaato iyadan lagama qaadan karo xididka. Tusaale ahaan daawo loogu talagalay Diclofenac ah oo IM ah, intramuscular ah, haddii qofka uu ka qaato IV-ga, qofka waxaa imaan karo inuu xididkii ka naafoobo oo ka rabjaro, ama in daawadii ay ku keento qofka inuu koomo galo oo shoog galo oo kaleeta ayaa qofka imaan karo. Waxaa looga baahan yahay marka si dhibaatadaas looga taxadaro, waxaa qofka in waxyaalaha xuquuqda uu leeyahay bukaanka, xuquuqa uu leeyahay ayay ka mid tahay waa inuu qofka ka taxadiraa. Qofka daawada dadka siinaya health professionalka ah ee meesha ka shaqeeya sida nursing oo kaleeta, in qofka ka fiiriyo daawada uu leeyahay iyo
meesha laga siinayo ayaa daawada inta badan way ku qoran tahay. Waraaqad yar ee daawada ku dhex jirto leafletka ayay ku qoran tahay. Waxaa kaloo ay ku qoran tahay haddii cirbad ay tahay oo kaleeta dhalada ayay ku qoran tahay meesha laga qaadanaya. daawooyin waxaa jiraan laga qaato IM-ka sidoo kaleeta laga qaato IV-ga, laakiin mar kastaba waxaa muhiimadda saareysa wixii u horeeyo ayaa mar kastaba inta badan la qaataa. kuwa waxaa jiro la dhaho IV only, kuwa la dhaho kaleeta ayaa jira ayagana. kuwaas micnaheedu waxay ka dhigan tahay IV oo keli ayaa laga qaadan karaa, meel kale oo laga qaadan kara ma jiro. kuwa waxaa jira ayagana ku qoran IM only, kuwaas ayagana IM-ka oo keli ayaa laga qaadan karaa, meel kale lagama qaadan karo. sida hore u sheegnay kuwa oo IM-ka ah daawada oo laga qaato muruqa inta badan waa cadad oo waxay leedahay gooni ah. tusaale ahaan waxaa la qaataa oo keli 2.5 ml, wax ka badan micnaha muruqa lagama qaadan karo. marka si oo waxaasoo dhan dhibaatadaas ay dhaceyso aad kaga foojignaato waa inaad isku hubisaa right patientiga iyo right route-ka. intaas labadan ayagana waa kuwa ugu muhiimsan in laga fiiriyo bukaanka ay tahay. right time ayaa ka mid ah waqti sax ah in la siiyo daawada bukaanka iyo inta jeer ee u qoran. tusaale ahaan waxaa dadka inta badan mararka qaar loo soo qori karaa 1x3 qofka inuu daawada u qaato 3 waqti hal cirbad oo kaleeta in la duro ayaa qofka ayaa u qoran oo kaleeta kasoo qaad. waxaa kaloo oo macquul ah oo inta badan daawada dadka lagu bixiya dhaqaatiirta ay qoraan 1x2 oo kaleeta qofka labada waqti daawada inuu qaato, habeenkii iyo subaxii oo kaleeta inuu qaato, iyo daawada qofka inuu qaato 1x1 oo kaleeta in qofka daawada u qaato hal waqti oo kaleeta daawada inuu qaato, habeenkii oo kale inuu qaato. sida artemeterta oo kaleeta iyadana 2x1 oo kaleeta 1x1 oo kaleeta in hal mar oo kaleeta cirbada keli la duro, haddana habeenkale halka la duro, habeenkale hal la duro, saas loogu dhameeyo iyadana waa la qoraa. ama single dose use oo kaleeta inay tahay daawada hal mar la isticmaalayo sida fansidarka oo kaleeta iyadana waa xuquuq ka mid ah xuquuqaha daawada ee leedahay. right administration in sax ah loo maamulo daawada. si sax ah daawada in loo maamulo ayaa loo baahan yahay. tusaale ahaan in la dhigo daawada meel ku habboon. waxaa loola jeedaa farmasiga waa inuu ahaadaa mid qabow ah. daawada taasha ee ahaataa daawada loogu talagalay heerkulkeeda loogu talagalay inay daawada ka hesho farmasiga ayaa loo baahan yahay. waayo taas waxay kaa caawinaysaa daawada inay high quality ay noqoto, tayada loogu talagalay in laga helo ayaa kaa caawinaysaa haddii heerkulkii si fiican laga dhigo. laakiin haddii heerkulkii laga fikri waayo daawada waxay noqonaysaa mid aan heerkul lahayn. tusaale ahaan waxaa arkaysaa qof waa lay daaweeyey ku dhahayo oo haddana daawadii waxba iima tarin ku dhahayo. waxaana sabab u ah in daawadii heerkulkii loogu talagalay aysan helin ayaa sabab u ah, ama daawadii ku habbooneed xanuunka hayay ma uusan helin. intaas iyadana way dhici kartaa. marka right administration in si sax ah daawada loo maamulo waxay kaa caawin kartaa qofka ama daawada xuquuqdeeda in si sax ah laga dhigo. oo waayo haddii right administrationkiis si fiican aysan u jirin ama si fiican in daawada aan loo maamulin oo daawada la dhigin meel aan ku habbooneyn, waxaa iman karta daawadaas inay noqoto low quality, qofkina uu ku caafimaadi waayo. waana dhibaato kaaga iman karto hodhow in oo noloshaadii ama qofkii uu ku daawo waayo. marka waa in laga foojignaadaa in sidaas ay dhacdo. 6daas ayaa ah 6da xuquuqood ee daawadu leedahay. haddii intaas si fiican looga taxadaro waxa aan heli doonaa caafimaad wanaagsan. qofku waxa uu rajay doonaa caafimaad wanaagsan. haddii aan si fiican looga fiirsanin dhibaato ayaa iman karto. laakiin qof kasta oo health professional ah waxaa looga baahan yahay inuu 6daas ka taxadaro. siiba dadka ka shaqeeya nursing wardska, dadka shaqeeyo inta badan waxaa looga baahan yahay in si taxadar leh, qiimeyn leh, xishmad leh inay si fiican uga foojignaadaan. haddii intaan la helo waxaa dhici doonta in qofkii uu caafimaado, waana arrin aad u wanaagsan. qof kasta oo dhakhtar ahna wuxuu jecel yahay in daawadii uu soo qoray ama qofkii uu qaabilay in uu daawismo ama uu caafimaado. wax uu ka jecel yahay malahan. waana arrin wanaagsan in qof kasta oo
health professional ah oo si fiican kaga taxadara. waa walaalkiina Dr. Cabdisalaam Nuur Axmed oo idin leh ka faa'iideysi wanaagsan ama ka faa'iideysi wacan. waxaan idin rajeynayaa bashashii buraaqo insha Allah kulanto dambe oo xiiso leh insha Allah iyo asbuuc dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. haddii aad janaalkeena ku cusub tahay fadlan subscribe saar, like saar, share leh, waana ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. wixii ra'yi iyo tusaale ah noogu reeb qaybta commentiga. waa ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. mahadsanidin.